magaalada Dila ee gobolka Awdal waxaa ka dhacday munaasabad balaaran oo lagu dhagax dhigay dugsi sare oo boarding ah oo markii ugu horeysay taariikhda laga hirgelin doono gudaha magaaladaasi Dila. munaasabadan waxaa ka soo qayb galay odayaasha waxgaradka aqoon-yahanada, salaadiinta, xildhibaano, qurbajoog, ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee beesha reer Dila, waxaana si weyn loo falanqeeyay faa'iidada uu leeyahay iskuul boarding ah oo degmadaasi laga hirgeliyo. dhagax dhiga iyo dhismaha iskuulka sare ee boardingka ah waxaa kaalin weyn ka geystay jaaliyada reer Dila ee waqooyiga Ameerika ku dhaqan, waxaana munaasabadan lagu dhagax dhigay iskuulkan sare ee boardingka ah ugu horeen ka hadlay maayarka degmadaasi Dila, wuxuuna si weyn u taageeray hawshan lagu dhisay iskuulka sare ee boardingka ah. dugsigaas oo ay ka faa'iideysan doonaan dhammaan ardayda ka soo baxda 12 dugsi ee degmada ka jira dugsigaas oo ay dhisayaan ilmadii dhalinyarta ah ee qurbajoogtii u dhalatay gobolka Awdal. waxaan leenahay aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin, aad baan ugu faraxsanahay sida qodobada leeyahay soo agaasinteen ee aad degmadii iyo dadkiina wax ugu qabanaysan. waxaa sidoo kale madashan ka hadleen waxgarad, salaadiin, aqoon-yahano, ganacsato iyo mas'uuliyiin kala duwan oo madashan ka soo qayb galay, waxayna sheegeen inay si weyn ugu faraxsan yihiin hawshan lagu dhisayo iskuulka sare ee boardingka ah. ilaahay waxaan ka rajaynaynaa qalbigeena iyo qulubteena waxay wada dhashay tan walba kolka loo eego aan ugu duceynayaa inuu mid qula ka dhigo oo maslaxadeena ina tuso iyo dareen halka ka shaqeeyo insha Allah keena halkay iyo mustaqbalka ka mid inaan garab joogsano tariiqa qodobka qurbajoogdu haday hawshoodii soo qabsatay annaguna waxaan rajaynaynaa in qaybteeda qabsano. waxaan ku hadlayaa magaca dhalinyarta degmada Dila maadaama ay dhalinyarta qurbajoogku qaybtoodii iyo dhagax dhigoogii iyo qaabkoogii soo qabsadeen ka shicib ahaan ka degaan ahaan waxaan annaguna samaynaynaa inaan ka qayb qaadano wixii horumarina ee wax u taraya degmadeeda. sidaa darteed hanagu talagalaan dadaalkaa inaan dhan walba ka wado dhankoogu ka wadin. waa farxad gaar ah bay taasi ay tahay. waxaan kaloo mahad gaar ah u celinayaa dhalinyarada diasporaha ah ee garatay inay xoogoogii ku soo celiyaan dalka. waxa weeyaan maantana waxaan doonaynaa dhalinyaradu saasay u wadi doontaa. dadweynaheena waxaan ka codsanaynaa inay had iyo goor dhiiri geliyaan oo waxa la wixii ay la yimaadaan aan la soo taagin. dadka iska wadaleeyihiin ma cid gaari waxay raadeen ama soo isqaa iyo soo sheegeen inama xiriina kuwa qurba jooga kuwa dal jooga wakiilada ka halkan taagan maanta iyo kuwa maqanba ducaayi khayr baan ugu ognahay. aan mahad celinayaa yani dadka walaalaha ayaa ee ku deeqay masaaxada inta leega 300 iyo 200 mitir ee dhulka. waxa weeye iskuulkaasi Somaliland buu dhismaya diligaaro ma laha meesha uu ka dhaxaynayaan waxa weeye beesha iyo beesha Dila waa mataano waa laba isku mid ah. Axmed Cabdilaahi oo ka socday qurbajooga degmada Dila ka soo jeeda ee ku dhaqan dalka Mareykanka isla markaana kamid ah xubnaha ugu firfircoon ee dhisaya iskuulkan sare ee boardingka ah ayaa ka hadlay madashan, wuxuuna falanqeeyay ujeedada dhismaha iskuulka sare. iskuulkan boardingka ee maanta meesha la dhagax dhigay waxaan kolkaan aragnay baahida taala iskuul ee u taala 22 iskuul oo ka soo 57 iskuul oo ka soo bilaabma bariga Boorama ilaa iyo galbeedka Gabiley ayaan ugu talagalay inuu buuxiyo iyo dhammaan dadka soo balay gareeya guud ahaan cid kasta waa furan yahay iskuulku. marka baahida meesha taala iskuulla fara badan oo iskuul kasta inaan kasta ku 8 gaaro uu doonayo high school inuu galo in uu buuxiyo ayaan ugu talagalay oo boarding ahaan ninka ka fogina yimaado ninka u dhawina yimaado dhammaanna la wada seexdo dhammaanna uu buuxiyo baahidaas. qodobka labaad ee aan doonayo inaan ka hadlo waxa weeyaan wax qabadka iskuulkan sidaan idin sheegay anoo ku hadlaya magaca diasporaha waan diyaar baan nahay dadka iyaga dibaddu inaan iskuulka wax ka qabanno insha Allah. idinkana waxaan idin sheegayaa intiina gudaha joogtana dadku dal iyo dibad in la wada shaqeeyo ayaa fiican inaad si fiican wax uga qabataan oo hawl gashaan.
si kastaba ha ahaatee degmada Dila waxay ka mid tahay degmooyinka ugu waaweyn gobolka Awdal wuxuuna dhismaha iskuulka sare ee boardingka ah ku soo kordhin doonaa horumar xoogan oo wax badan ay ka faa'iideysan doonaan ardayda kala duwan ee degmada Dila iyo hareeraheeda ku dhaqan. Cabdi Fataax Axmed, Had Wanaag News, magaalada Boorama.